wargeysyada caalamka ayaa maanta si weyn u hadalhaya hadal ka soo baxay dowladda Iran kaasoo ah in markaa haddii ay sii socoto dhibaatada Israel ay ku hayso marinka Gaza ee duqeymaha iyo in ay dagaal dhanka lugta ku gasho Gaza aanay sidaa ku daawan doonin taasoo macnaheeda ah inay ku soo biirayso dagaalkan isaga waxay wargeysyadu markaa ay sheegayaan in arrintani ay kadis ku noqotay dowladda Israel maadaama aanay filayn dowlad markaasi islaam ah oo si toos ama bareer ah u sheegta in aanay raalli ka ahayn weerarada iyo duqeymaha Israel ay ka geysanayso marinka Gaza. Arrintan waxay markaa ka dambeysay kadib markii maalmihii laga soo gudbay aad loo hadalhayay in markaa dowladda Iran iyo ururka Xisbullah oo ay taageertay ka dagaalama dalka Lebanon isla markaana mararka qaarkood gantaalo ku soo tuura dhanka xuduudda ciidamada Israel kaga sugan xuduudda u dhaxaysa Lebanon iyo Israel. waxaana sidoo kale warkan oo uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Iran oo maalmihii laga soo gudbay safaro ku tagayay dalal badan oo carabta oo ay ka mid tahay dalka Lebanon oo uu la kulmay madaxda waddankaasi iyadoo ilaa haddana aan si rasmi ah loo ogeyn waxyaabaha ay ka wada hadleen laakiin dadka u dhow doleela siyaasadaha bariga dhexe waxay sheegayaan in ay taasi tahay dardargelin ay Iran dardargelinayso in markaa meel ay dalalka islaamka uga soo wada jeestaan xaaladda Israel ay ku hayso marinka Gaza iyo dadka Falastiiniyiinta ee la laynayo duqeymihii oo weli halkoodii kasii socda ayaa haddana wararku intaa waxay ku darayaan in Israel ay qorsheynayso weerar dhanka dhulka iyo cirka iyo badda inay ku qaado marinka Gaza taasoo horeyba qaybo ka mid ah duqeymo halkaa uga yimaada gaar ahaan dhanka diyaaradaha dhanka badda ay ku socdeen marinka Gaza laakiin saacadihii laga soo gudbay xoogga hubeysan ee Xamaas ayaa markaasi soo bandhigay muuqaal ay ku muujinayaan iyagoo markaa gantaalo kuwa garbaha laga tuura ku garaacaya gawaarida gaashaaman ee Israa'iiliyiinta gaar ahaan taangiyada oo ay gubayaan iyo maxaabiis halka ay kala soo baxayaan taangiyada dhexdooda taasi ayaa lagu macneynayaa inay suuragal ka dhigtay in Israel hadda ay sheegto in si ku meel gaar ah ay hakad u gelinayso damaceedii ahaa weerar dhanka dhulka ay ku qaado marinka Gaza dadka markaa aadka u taxliiliya ama u falanqeeya arrimaha xiisadan iminka ka jirta gobolka bariga dhexe gaar ahaan Israel iyo weliba Falastiiniyiinta Xamaas ayaa waxay sheegayaan in muuqaalka ay sii daysay xoogga Xamaas ay suuragal ka dhigtay in ay hakiso Israel weerarka ay damacsanayd dhanka dhulka inay ku qaado marinka Gaza maadaama sida ay sheegayaan Xamaas ay muujinayso inay Israel kaga adag tahay hadiiba ay isku daydo in weerar dhanka dhulka ay marinka Gaza ku soo qaado waxyaabaha aadka ay ula yaaban yihiin dalalka Israel iyo Mareykanka ayaa waxay tahay halka iyo sida ay ku heleen gantaaladan garbaha laga tuuro ee markaasi dhaawaca gaarsiinaya ama ay kula dagaalamayaan gawaarida gaashaaman ee Yuhuudda haddii ay isku dayaan inay weerar dhanka dhulka ku qaadaan Gaza gaar ahaan bambaanooyinka loo yaqaano anti-tangiga waxaase sidoo kale arrintani ay keentay in markaa Israel ay imika soo baxayaan warar sheegaya in mid ka mid ah saraakiishii hogaaminaysay ciidamada dhulka ee Israa'iiliyiinta ama saraakiisha hogaamisa ciidanka dhulka ee Israel uu geeriyooday kaasoo aanan la sheegin inuu ku geeriyooday weerarkii ay Xamaas ku qaaday dalka Israel ku sugan tahay iyo in markaa gantaaladan ay Xamaas tuurayso ay waxyeello ka soo gaarto uu ku dhaawacmay deetana markii dambe uu ku geeriyooday ama uu geeriyooday dhaawacaasi waxaa sidoo kale wararku inta ay ku darayaan in dowladda Mareykanka ay markaa dowladda Dooxa ay u sheegtay inay xirto xafiis ay Xamaas ku leedahay magaalada Dooxa taasoo dowladda Qatar ay sheegtay inaanay xiri doonin maadaama xafiiskaasi aanu ahayn xafiis dagaal oo uu yahay midka dhexdhexaadinta laga sameeyo nabadda laga raadiyo isla markaana Xamaas mar walba oo la doonayo in wadaxaajood iyo nabad laga dhexdhaliyo iyagii dhanka Israel ay tahay goobta Xamaas ay isla ka qaadato
dowladda qatar iyo dowladaha kale ee daneynaya xiisada in la joojiyo wadaxaajoodyada. waxay tani sidoo kale imanaysaa in dowladda maraykanka iyaduna ay sheegtay in maraakiib kuwa dagaalka oo hor leh ay u soo dirayso xeebaha Israel, taasoo ujeedadeedu ay tahay inay markaasi kaga sii gaashaamanayso haddii ay dhacdo duulaano iyo in xiisadan hadda jirta ay sii kororto dowlad kale oo kusoo biirta ama cid kale oo isku dayda inay garab siiso xoogagga Xamaas, iyadoo sidoo kalena la sheegay in diyaaradaha kuwa dagaalka maraykanku uu leeyahay iyaguna la geeyey saldhigyo maraykanka uu ku leeyahay dalka isutaga imaaraadka carabta, taasoo ujeedadeedu ay tahay in markaa haddii ay dhacdo Israel inay la kulanto culays dowlado kale oo dowladaha carabta inay markaa yuhuuddu garab ka helayaan maraykanka oo haddaba hiil iyo hooba la garab taagan. horeyna dowladaha ruushka iyo jiinaha waxay sheegeen in waxani aynay ahayn isdifaacid ay yuhuuddu ka geysanayaan dhulalka Falastiiniyiinta, laakiin ay tahay dhibaato loo geysanayo dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta ee ku nool marinka Gaza. afhayeen u hadlay xoogagga Xamaas ayaa sheegay in Israel haddii ay isku daydo weerar dhanka dhulka oo ay ku soo qaado marinka Gaza ay tahay mid ay ka qaadanayso cashar lama iloobaana, isla markaana waxa kaliya ay sugayaan ay tahay in Israel ay weerarka isaga soo qaado. ilaa hadda waxyaabaha aadka loo hadalhayo waxay tahay in xiisadan oo muddo 8 maalmood ka socota dhulalka Falastiiniyiinta iyo Israel ay suuragal noqon karto, ama dadka saadaasha bixinaya waxay sheegayaan inay noqon karto mid kusii baxda gobolka oo dhan bariga dhexe, maadaama sida muuqanaysa maraykanka oo diyaaradihiisa iyo maraakiibtiisa dagaalka soo dhoobay ama keenay xeebaha dhulalka Israel iyo diyaaradahan dagaal ee uu geysanayo dalalka carabta qaar ka mid ah, in markaa xiisadu ay u muujinayso in aanay ahayn mid sahlan oo ay halkaa kasii ballaaran tahay, arrintuna aanay ku koobnaan doonin keliya Israel iyo xoogagga hubaysan ee Xamaas. balse waxaa sidoo kale baqdinta kale jirta ay tahay in dhibaatada iyo tacadiga Israel ay ka geysanayso dhulalka Falastiiniyiintu ay khasaaruhu intaa kasii badan karaan, maadaama hadda sida wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiintu ay sheegtay dad ilaa markaa 2,232 ruux ay ku shahiideen oo ku geeriyoodeen duqeynta Israel ay ka geysanayso marinka Gaza. sida markaa wasaaradda caafimaadku ay sheegtay dadka dhaawacana ilaa 3,000 kor ay u dhaafayaan, balse waxaa iyana weli halkoodii taagan oo khasaaruhoodii uuna sii kordhin sida Israel ay markaa uga gaabsatay khasaaraha Israel dhankeeda ka soo gaaray duqeymaha Xamaas ay ka geysanayso dhulalka Israel ay ku sugan tahay, waxaana Israa'iiliintu ay ka gaabsanayaan inay sheegaan xaqiiqda dhabta ee duqeymaha iyagu markaa dhankooda laga geysanayo waxa ka soo gaaray, iyadoo ilaa ay haddana kusoo koobayaan in khasaaruhu uu yahay 1,300 oo ruux oo Israa'iiliinta kaga geeriyootay duqeymaha ama weerarada dhanka gantaalaha oo ay Xamaas ku tuurayso dhulalka Israa'iiliinta, taasoo ila ka madax bannaan Israel ay sheegayaan in khasaaruhu inta aanu ahayn ee uu kasii badan yahay, balse Israel aanay doonin inay intaa kasii ballaariso. horeyna markaa jaraa'idada dalka Israel ka soo baxa waxay markaa sheegayeen inay jiraan khasaare intaa ka badan oo ay ka mid tahay in xitaa saacadihii laga soo gudbay mid ka mid a diyaaradaha dagaalka Israel ay xoogagga Xamaas gantaal la heleen, taasoo Israel ay sheegtay inaanay diyaaradda soo dhicin, laakiin wargeysyada ka soo baxa dalka Israel ay sheegayaan in diyaaraddu ay soo dhacday, isla markaana ay sii kordhi karto khasaaraha Israel iyana ka soo gaaray weerarka isaga ee Xamaas ku soo qaaday dhulalka Israa'iiliyiinta iyo weerarada dhanka gantaalaha ay ku soo tuurayso. ilaa haddase dhanka Xamaas iyana waxay markaa weli wadaa weerarka dhanka gantaalaha ay ku tuurayso dhulalka Israel ay ku sugan tahay, gaar ahaan Tel Aviv iyo weliba Ashkelon halka la yiraahdo oo weerarada gantaalada ay markaa Xamaas tuurayso ay halkaa gaarayaan. dadka deegaanada ku nool ayaanan hurdo ladin tan iyo markii weerarkan oo muddo 8 maalmood imika laga jooga socda ay Xamaas ku qaaday dhulalka Israa'iiliintu ay ku sugan yihiin, waxaana dadku ay u tahay mar walba kuwa sugaya oo dhageysanaya
dhawaqa digniinta ee markaa muujinaya in gantaalu hawada soo galay. waxaan la ogeen halkaa sida rasmiga ay u saldhigan doonto xiisadan iyadoo sida dadka arrimaha bariga dhexe aadka ula socda ay sheegayaan in arintu ay ka weyn tahay Israel iyo Xamaas, balse ay suuragal tahay in gobolka oo dhan ay arintani ku biirto ama ay ku ballaarato xiisadan ee taagan.